xuska maalinta 18 May ee Somaliland qarannimadeedii ay dib ugala soo noqotay midowgii Soomaaliya ee 60kii ahna 27 guurida Somaliland cusub ayaa maanta si weyn loogu dabaaldegay magaalada xeebta ah ee Berbera iyadoo oo bariga iyo badaba dabaaldegaasi uu ka dhacay saaka xilli hore ayaana dabaaldegaasi waxa uu ka bilowday bartamaha magaalada Berbera iyadoo oo socod dheer ay ku soo mareen shaqaalaha kala duwan ee hay'adaha dawladda ee magaalada Berbera mas'uuliyiinta dawladda hoose oo iyagu lahaa abaabulka ugu ballaaran ee dabaaldega kasanka ardayda dugsiyada qaybaha kala duwan ee bulshada ciidamada qalabka sida ay Somaliland iyo kuwa booliska iyo waliba shacbi aad u tiro badan oo saaka dabaaldegan isugu soo baxay dabcanna ganacsade kamid ah reer Berbera oo magaciisa la yiraahdo Keisi ayaa isaguna dabaaldegan awadeed ku soo bandhigay tobaneeyo baabuur ah oo ugu tala galay in xafladan 18 May dabaaldegan ayaa sidoo kale waxa uu ka dhacay shanta degmo ee gobolka Saaxil ay xukunto degmada Sheekh degmada Xagal degmada Laascille degmada Bulxa iyo waliba degmada Goodaweyn waxaana saaka ugu horeyn xuskan 18 May ee magaalada Berbera ka dhacay fagaarahaasi kala hadlay dadweynaha tirada badnaa mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada ee gobolka Saaxil iyadoo maanta u dabaaldegno 27 guuradii madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland oo ah jamhuuriyad laba taabtaan oo xor ah ilaahay baa mahad leh waxa weeyaan aad baynu u faraxsanahay waxa kale oo farxad noo ah sida dadweynaha reer Berbera maanta ay u soo baxeen ee muga iyo miisaan kale ee aanay u kala hadhin iyagoo muujinaya xadaaradii ilbaxnimadii isku xidhnaantii iyo midnimadii lagu yaqaanay weligoodba waxaynu maanta xusaynaa qarannimadeennii iyo jiritaankeenii waxa jira cadow ay leenahay fara badan cadowga tibiyo ciidankeena alla ha guweeyo saaka ciidanka waa la farfariyayna cagtay mariyeen inta hadhana cagta ha mariyaan waxaan idin sheegayaa oo aan ku celinayaa waxaynu ku murmaynaa waxaynu nahay dad islaam ah waxaynu sugnaa tawxiidkii waxa calankeena ku xadhan laa ilaaha ila allah muxammadur rasuulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله ميا كون كله قبقة ميا لولا ورورا إلهي بن ترى سعرنا إلهي بات وقالنا Somaliland يشتو مرة بيجي حلنا على Somaliland هاتشبو ما أنت وحينو تبالدقينا سنة جوردي تضوي اللواتنات كسو ورقتي مركي أينو حرني ودينا قبني ودينا لصار نقرني كل استديو 20 May كل سجال بقول كوبي سجاشنكي ولا ريال وادوكتهين بلكن أنت طويل على تنكاسرو يسقوا عن احتراف يسن هيرك أو صومري يهلك إنه ما أنت تاجن هاي أو إلا جو حمديو وحلا إلا جو حمديو هاو حلقو كاري ما حنقول هذا وذا تشي اسكو تشي هي اسكو تيرسنان بوقرن كتاب قلا أو أهل كديكنا أي نسنة كان لو أستي. أرشقنا تاجي عيدنا قلو على هدين تي علمي قلب دبنا دليليو علماء ودين تالها عمنا قيليو علن كتوحيد كلي الله تبكنا قليو محمد نبينا قديقي ووقوم مهد نغنى اللهم صل وسلم وبارك عليه عيدا كسوما لله هم بانو الدعينيا دارين كودا تاغان دولدني ما يرهبان عدوغو إذن مدوبو عفيمات كسوغا درجة راق تايبا تركا لوغو حراي جانان الله سوحولاشي دهورا وجرا عندي قينا وحقلنا إيساننا عيار إيسان horta marka hore waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi inta ka bacdi maanta dareenkaygu aad iyo aad ayuu sareeyaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu anagu sahla ka soo qayb galno xuska 18 May nin walba wuxuu ahayn buu kaga qayb gelayaa nin walba faraskiisu buu keenayaa annagu waxaanu keenay fardahan waxaanu keenay 12 ka baabuur waxaanu kaga qayb gelaynaa tartanka ama dabaaldega xuska 18 May maanta waa maalintii loo aasteeyay in laga qayb galo 18 May waa maalin qaranka Jamhuuriyadda Somaliland qiimo gaar ah ugu fadhiday weeye maanta magaalada Berbera maanta aad baa looga dabaaldegay marka maamul ahaan aad baan ugu hambalyeeynaa maamulka heer degmo iyo heer gobolba
ugu dambeyntiina munaasabadan waxaa la hadlay kumanaankan kun ee reer Berbera ah saaka xuska 18 May wasiiro ka socday xukuumadda Somaliland maanta aniga waa ay laba farxadood oo farxadda ay dhiin May ay maanta u dabaaldegayno iyo markii koobaad ee dadweynaha reer Berbera aan munaasabad noocan oo kala soo qayb galo intii ka dambeysay doorashadii aad iyo aad baan reer Berbera sharaf iyo qadarin iyo bogaadin aan ugu hayaa Soomaalidu ninkii la oran jiray Malcolm X ee halgamaagii weynaa wuxuu laba shay lama kala saaro xornimo iyo nabadgelyo xornimo haddaanay jirin nabadgelyo ma jirto nabadgelyo haddaanay jirinna xornimo ma jirto maanta halkan waxaan ka jecelahay saddex qodob aniyarood gobolkan saaxil maalin dhaweed ka dhacay waxaan doonayaa inaan u caddeeyo ummadda Somaliland iyo gaar ahaan gobolka saaxilba makasta iyo wax magaratada meelaha tiifiyada ka hadlaya ee ummadda walaalaha ee wada dhalatay ee wada joogta kala geynaya waxaan leeyahay waxba kama jiraan reer Berbera iyo reer saaxil waa mid runtii alxamdulillah mahad bay maanta noo tahay aad baan ugu faraxsanahay inaan nagala soo qayb galno 18 May oo ah maalin aad iyo aad ugu qiimo badan qarannimada Somaliland oo maalinta aynu la soo noqonay xorriyadeena marka taa laga tago waxaan maalmahan maqlayseen dhibaatooyin gudaheena ka soo noqono oo ciilaf weyn sanaad waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha ee isku diraya halkaasi ilaahayna Somaliland maanta u baahday in gudaheena uu dhiigu daato inagoo cadow badan ay reer Somaliland leeyihiin waxaan ugu baaqaynaa qarannimada in dhiiga la joojiyo in maanta ciidamada Puntland ay ku soo duuleen Somaliland laakiin ciidanka xoogga dalka Somaliland uu maanta uu ku dhow yahay Puntland oo ay la kaceen ciidankii soo weeraray waa inaynu ciidankeena gacan siinaa waa inaynu ciidankeena isgarab taagnaa waa inaynu ilaalinaa midnimada waa inaynu qarannimada Somaliland way ka tagtay qabiil iyo nin gaara oo dan gaara leh way ka tagtay Somaliland tartar baa ka dhacay doorasho xalaala ka dhacday kursigana waa lagu guulaystaa looma baahno qof makarafoon qaato dadka xagga dambe kaga eedaama taa Somaliland way ka gubtay وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي قاعد بولش تي في مقالة حبيت بربرة